بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay tahay taariikhdu 15 May waxay ahayd maalintii xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka soo wareegtay 77 sano 77 guuradii ahayd xuskeedii dhalinyarada waa maalinkii 13 dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed ay u istaageen inay dalka Soomaaliya xornimadiisa dawladnimadiisa sharaftiisa karaamadiisa iyo xuduudihiisa ay u istaagaan oo soo celiyaan oo ay ka shaqeeyaan Soomaali ah oo wax walba oo ay xaq u lahayd heli karto oo dawladnimo ah ay isu xilqaameen ay u istaageen bay ahayd runtii waana la gaaray ilaahay ha u wada naxariisto guul iyo sharaf iyo taariikh fiican ee soo gaarsiiyeen ummadda Soomaaliyeed xornimadii iyo dawladnimadii la doonayayna waa la gaaray runtii waxay ahayd maalin sharaf iyo karaamo u leh ummadda Soomaaliyeed baal dahab ahna uga jirta taariikhda sooyaalka ee Soomaaliyeed iyo taariikhda munaasabadaha la xuso ee Soomaaliya oo sharciga ah oo dastuuriga ah ku jirto maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed SYL 13 soo aasay runtii waa maalinkaas way maanta maalinka aan joogno waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u sheego dhalinyaradan shalay isxilqaamaysay oo Soomaalida ahayd oo walaalihiina ahayd runtii adinkoo kale ahaayeen ma aysan haysanin facility-ga maanta jiray aqoonta maanta jirtay tiknoolajiyada maanta jirtay tayada maanta jirtay taranka iyo inta tirada maanta Soomaalida dhalinyarada ay ka tahay maadaama ay Soomaali 70% ay dhalinyaro yihiin waxaa la dhigi karaa 80% laakiin 70% yaa lagu qiyaasaa inay dhalinyaro yihiin dhalinyaradii ayaga ahayd dhalinyaradii walaalihiina ahaa oo waalidkiina ahaa oo soo bilaabay aasaaskii SYL iyo maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed soo bilaabay halgankii asaga ahaa ma joogsanin waxaa la rabaa inuu meeshiisa ka sii socdo ayada oo uu Soomaaliyeysan yahay si Soomaalinimo ah nin kastoo dhalinyaro ahna mas'uuliyadda ka saaran waxay tahay dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu ilaaliyo uu difaaco xornimada dalkiisa uu ka shaqeeyo dawladnimada dalkiisa uu ka shaqeeyo diintiisa uu ilaashado midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeedna uu ka shaqeeyo runtii waqtiga yaa kala duwan laakiin dadka waa isla dadkii ay dhaleen waxaan aaminsanahay sidii fikirkii ay ku fikirayeen 13 SYL haddii maanta 13 milyan oo dhalinyaro ah joogto oo Soomaaliyeed 13 milyan oo dhalinyarada oo Soomaaliyeed haddii laga waayay 13 SYL la mid ah oo u istaago qarannimada Soomaaliya iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliya inay soo celiyaan iyo wadaniyadaas u istaaga laga waayo waa nasiib darro mana u maleynaayo in laga weynaayo waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed taariikh fiican baa ku leedihiin dawladnimada Soomaaliya waxa leedihiin sharaf waxa leedihiin karaamo waxa la rabaa awoodiina iyo aqoontiina iyo xoogiina iyo waxtarkiina iyo garashadiina inaad uga faa'iideysaan dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina oo aad dalkiina ku soo celisaan dawladnimadii aad ka shaqeysaan midnimada ummadda Soomaaliyeed aad ka shaqeysaan walaalnimada ummadda Soomaaliyeed 13 SYL dad dhalinyaro oo Soomaalinimo isku raacay bay ahaayeen Soomaali waxaan ahayn oo ka dhaxeeyay ma jirto sida hadda aan u qaybsanahay oo qabaa'ilka ah oo loo kala fadhiyo ma ahayn isku qabiil ma ahayn isku gobol ma ahayn isku deegaan ma ahayn
dad dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo Soomaalinimo iyo mabda' isku raacay oo isugu raacay inay ugu halgamaan wadankooda Soomaaliyeed ugu badbaadiyaan rabay ahaayeen waana u istaageen intaasayna walaal ku ahaayeen oo inuu mid ku ahaayeen Soomaalinimadaas ay walaal ku ahaayeen maanta Soomaalinimadii waa taala dhalinyaradii waa joogan wadaniyadii waa jirtaa waxaan rabnaa marka qabiilkan inta laga bixiyo dad dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo isku mabda' ah Soomaaliya u istaagay in dhalinyarada Soomaaliyeed laga helo oo ay meel kasta joogaan buu istaagaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay mas'uuliyad culus iyo in ka saaran dalka iyo dadka iyo diintaba waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraaho annaga dawlad goboleed ahaan waxaan leenahay waa idin garab istaageynaa wixii allaale iyo habeen imaanin baad u taagantiin dalkiina habeen imaanin baad u socotaan habeen imaanin baad u shaqeynaysaan adinkoo ciidan adinkoo taqaatiir adinkoo wariyaal adinkoo shaqaale adinkoo laakiin waxay u baahan tahay in taariikhda sooyaalka dib loo xasuusto oo ayadii laga shaqaysiiyo oo midnimadii Soomaaliya iyo wadajirkii iyo dawladnimadii Soomaaliya la soo celiyo insha Allah marka waxaan leeyahay 15 May xuskiisii munaasabadii lagu xusi jiray iyo waqtiyadii wax la xusayay sida wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ee dawladda federaalka ay u sheegtay cudurkan jiro awgiis uusan xusku u dhici karin annagana intaan ka hambalyeynayna waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan guuleysta kuwii dalka iyo dadka anfaca Allah in ka dhigo kuwii wadaniyada iyo dawladnimada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyo Allah in ka dhigo meel kasta oo joogtaanna waxaan leeyahay dhalinyaro ay soo barbaara madaxdii maanta iyo madaxda bariba waa tihiin dalkiina dadkiina ilaashada aad iyo aad aan u mahadsantiin munaasabadii marka saanan inta ugu qabanayna haddii Ilaahay yiraaho iyo hambalyadaas waxuska intaas uu noqonayaa maadaama uu jiro cudur aafa ah oo adduunka dhan halakeeyay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba inaan u sheego sidaan horeyba ugu sheegay cudurkan COVID-19 ka ah coronavirus-ka waa cudur dilaa ah waa cudur adduunka oo dhan saameeyay adduunyada meel uusan gaarin ma jirto iyo cid uusan ku dhicin waxaan rabnaa marka sida adduunka ay ola dhaqantay oo ay u maareeyeen oo isaga ilaaliyeen oo u soo koobeen xaaladihii cusbaa oo soo kordhayay annagana inaan jidka asaga ahaa marna si aan uga bandadno maadaama uusan daawo lahayn uusan ka hortag ma ogi daawo uusan lahayn talaal uusan lahayn annagana aan waliba nahay dadka aadka ugu nugul oo dadkii adduunyadii taqaatiirta iyo daawooyinka iyo isbitaalada iyo karantiilada haysatay ay u taacibo waayeen oo dhimashada ay inta maanta adduunka ay milyan ay kor u dhaaftay waxaad moodaa in dadka Soomaaliyeed aad loo yareystay khaasatan Koonfur Galbeed waa laga helay dhowr meelood baa lagu sheegay dhimasho badan baa jirto dadka ma ogolo inay isbaaraan cudurka waxay moodayaan wax masiibo ah cudurka masiibo waaye wax Ilaahay keeno waaye hadduu kugu dhaco waa hergab xumaaday waaye ama waa ka kacaysaa sida cudur lagu arki jiray waaye ama waad ka kici ama waad u dhimanay laakiin waxa ka muhiimsan inaadan horta cudurka sida loo dhigay oo loo bartay aanu noqonin oo la ceebaysanin in qofku uu yiraaho cudurkiiba ay hay ceeb ma waa adiga oo yiri hergaba ay hay waa adoo yiri malaria ay hayso waana laga daaweynayaa waa taxadiraysaa dadka ku daaran sida caadada noo ahayd waagi hore markuu hergab kugu dhaco waxa lagu dhigi jiray hergaba ku hay ilmaha ka dhaxbax ilmaha ku daaran waa sidoo kale hadii waxaan isku aragtid ilmaha ka dhaxbax ilmaha ku daaran taxadir taqaatiirta iyo talada adduunyada dhan taqaatiirtooda ay bixinayaan oo ka hortaga ah hal suubiyo
isu imaadyada hala joojiyo meelaha bulshada isugu timaado oo aadka loo isugu imaanayo hala joojiyo gacmaha hala dhaqdo hala samaysto afka hala xirto social distancing hala ilaaliyo haddii la isu imaanayo xoogoo hala isu jirsada hala kala fogaado ilaa 2 tilaabo saas loo sheekaysto waxaan salaanta iyo isdhaxgalka bulshadii inta cudurkan xal looga helayo waxaan qabaa in saas loola dhaqmo wacyigelintana waa wadaynaa insha Allah dadaalo badan baan suubinay ilaahay baan ka magan galnay runtii dadka Soomaalidana naftirkooda waxyaalo badan ay suubiyeen oo isku day ah waana lagu guuleystay waxaan runaa marka dadaaladaas inay socdaan talada taqaatiirta in la qaato annagana wixii daawo ninkii hadduu isku arko isbitaalka ha tago hadduu dareemo wax caajis noocaas ku saabsan isbitaalka ha tago baaris ha galo waxaan diyaarinay xarumihii karantiilka waxaan diyaarinay taladii taqaatiirta ay bixin lahaayeen waxaan diyaarinay nurses iyo taqaatiir diyaar u ah oo qofkaas waxa laalay wixii lala qaban kara la qabanayo intaba diyaar yihiin ayadana waxaan leenahay insha Allah hal yeelo dadka talada taqaatiirta ha yeeleen oo meel walba ay joogaanbo ha ilaaliyeen waxyaalaha hal ilaaliyo ka hortaga ah insha Allah taala aad iyo aad u mahadsantihiin nabad iyo barwaaqo iyo khayr yaan isugu bishaareynayna Ramadan mubaarak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.